munaasabadan oo ahayd mid aad u ballaaran ayaa lagu maamuusayay xuska iyo xasuusta sheekhi islaamka isla markaana ahaa mid ka mid ah hogaamiyaasha baraarugii weynaa ee islaamiga ahaa ee fashiliyay duulaankii diin la dirirka ahaa ee gumaystaha reer galbeedku ay qarnigii 13aad ee hijriga ku soo qaadeen muslimiinta geeska Afrika. Allah ka raali noqday Sheekh Uways Al-Qaadiri ayaa ka mid ahaa culimadii waaweyneed ee ahlu beedka nabigeena Muhammad ah nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee kuwaas oo gacmahooda Rabbi ku badbaadiyay diinta dadka iyo dalka ummadda Soomaaliyeed. dacwada Sheekh Uways Al-Qaadiri oo ahayd mid aad u saameyn badan ayaa gobolka geeska Afrika kadib waxay u sii gudubtay guud ahaanba qaaradda tan Afrika halkaas oo ay saameyn ballaaran ku reebtay. munaasabado waaweyn oo sheekha lagu xasuusanayo isla markaana loogu duceynayo ayaa sanad walba xilligan oo kale waxay ka dhacaan magaalada Makina Road ee dalka Kenya. مولع وين الشيخنا الشيخ إسماعيل شيخ عبد القادر الشيخ عثمان شيخ شيغو شيخ ويس القادري أو كمده فرع بركيستان الشيخ ويس القادري أو كويا لما قالة مكينة رود أيا كمده حرومها سيدا وين لوغو ماموسو مناسبة داسي قصيدة شاعة عند الغادرية قصيدة شاعة عند الغادرية وقول الغادرية هذا بتوحيدي ونور وصار فيها هذه غرفة فيها قبول علوي من العشر kulanka ziyaarada ayaa waxaa si weyn uga soo qayb galay culimo diinka ahlus sunna wal jamaa oo isaga kala yimid qaybo ka mid ah gobolada dalka Kenya. haddaba kumuu ahaa Allah ka raali noqday Sayyid Sheekh Uways Al-Qaadiri waxa ka waramaya qaar ka mid ah culimadii waaweyneed ee munaasabada ka soo qayb gashay oo ay ka mid ahaayeen al-Calaamatul Murabbi Sayyid Abu Sheekh Maxamuud Nuur Sheekh Cabdiraxmaan Sayyid Yuusuf xafidahullahu ta'ala wa ra'ah iyo al-Calaama Sheekh Abdullah Sheekh Ali Aadan Sheekh Abdullah Marki xafidahullahu ta'ala. ziyaarada sheekhana Sheekh Uways Al-Qaadiri yaan halkaan ugu soo kulannay شيخ أويس العالم العلامة البراوي مولدا الشافعي مذهبا القادري مشربا الأشعري عقيدة البيولي مرقدا الولي المكرم الجهبذ المفخم صاحب الكرامات والمقامات المجتهد في طريقة غوثنا الأعظم شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وناشرها في بلادنا ووادينا وبلاد إفريقيا بل في المشرق والمغرب. سادة الكرام أخوة الأعزاء وسيدة المقلة سمو وزيارة الشيخ وينا شيخ المشايخ إمام الأولياء وسلطان الرجال سيدنا شيخنا الشيخ أويس. شيخ أويس مقعس والشيخ سيد أحمد وي سيد أحمد حاج محمد بشير وي المركز الشيخ أويس يا الشيخ أحمد سيد كالس كلها لبض مقعة ذاتك قارو حوهستين إن شيخ أويس سيدكو ياهي أبيسنا أحمد وياهي مركز لبض مقعة إلهي سيقول داري مقع النبي عليه الصلاة والسلام أو سيد أحمد إيه مقع الشيخ أويس القرن الشيخ أويس ابن عامر النبي وسير شيخ خير التابعين من بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو كما قال صلى الله عليه عليه. sidoo kale dadka ayaa waxay isweydiiyaan su'aalo ay ka mid tahay sirta ka dambaysa heerkan sare ee uu gaaray Allah ka raali noqday sheekhana Sheekh Uways Al-Qaadiri iyo waxa uu ku gaaray. waxaa nooga jawaabaya al-Calaamatul Murabbi Sayyid Abu Sheekh Maxamuud Nuur Sheekh Cabdiraxmaan Sayyid Yuusuf xafidahullahu ta'ala wa ra'ah.
بارك الله فيكم شيخنا شيخ أويس القادري وحكو جاري مقام كاس درجاس وحوي استقامة شرعة وكل أرصدي تقوى الله إله ذكري سوء بديه سيدنا شيخ أويس القادري القرآن كور دينجري توحيد كور دينجري وحكور دينجري على الضيف توحيد كأي أسماء إلهي ورد نفوس الله بديه قرآن كل بديه استقامة تقوى إله اللي يشون شيخ مربي جعلاته شرعة كل أرسناته مسلمين تي أحباب إلهي أولياء كل أدلة بتجري سوء جعلاته سيدنا شيخنا شيخ أويس ودي سهل كور على هنقدره وهجاك dariiqooyinka saalixiinta ee tasawufka aad ay u fara badan yihiin haddaba Sheekh Uways Al-Qaadiri sidoo u arkay dariiqooyinkaasi waxa mar kale nooga jawaabaya Sayyid Abu Sheekh Maxamuud Nuur Sheekh Cabdiraxmaan Sayyid Yuusuf xafidahullahu ta'ala wa ra'ah Sheekhan Sheekh Uways Al-Qaadiri dariiqooyinka isku mid ah waxayeen ma kala soocaynin waxa lagu aafaysto dariiqada la kala sooca sheekana ma aqoonin markuu Sayyidina Sheekh Abdul Qaadir Amaana muxuu yiri binaa'i bir rasuul Abdul Qaadir qutb al-aqdabi haykal al-anwari qadas Allah sirruhu markuu soo gaar Sayyid Ahmed Idris muxuu yiri بأحمد بن إدريس شيخنا إله كبرنا قطب أها شهير أها عالي المقام مقام كوسري ساسوري بأحمد الرفاعي الكبير وأحمد البدوي نور هدى درجة الرفاعي البدوي الشيخ وكتوصله بالنقشبندي وذاك عمر درجة النقشبندي وكتوصله شيء كدرجون كده مدبي وحيوان جعله واسيد قفك الليبان ربا مقام إنه جاره ولا جربه إنه الله إبن جعله عباد الله الصالحين وجعله قفك ولي إله علادية إله وحير أنا على الدجالة دجالك إله اسكو قليل dhinaca kale qofka markaas haduusan colaadin wali gaar ah yeeshee uu si guud u colaadinayo ama u durayo dariiqo kamid ah dariiqooyinka kale ee saalixiinta ma waxa jira wax dhib ah oo arintaas oo kale uga imaan kara qofka adduunkiisa aakhiradiisaba mar kale jawaabta su'aashaas iyo Sayyid Abu Sheekh Maxamuud Nuur Sheekh Cabdiraxmaan Sayyid Yuusuf xafidahullahu ta'ala wa ra'ah dariiqada culaas meeqa wali ba dariiqo ku jirta meeqa wali qaadiri meeqa wali ku jirta ويسي ما عارف ولا كجرا زيلع ما قولي كجرا احمدي ما قولي كجرتا رحماني رشيدي صالحي ما قولي كجرتا هل ولا هذا لعل تنت اله وحر انا كل دغالاي اله قف كل دغال خاتم محمد كدنتا اهل النار بنقداي ولي ساتر واري marka dagaalka ilaahay lama galo ahbaabtar wal jaclaada awliyaha wal jacla kuwa jooga aan nool aan jaclaano kuwa xijaabta dariiqsan aan jaclaano sheeqaagana si gooni u jacla oo tacdiim ixtiraam iyo salkigaaga barakallahu fiikum dariiqana Sheekh Uways Al-Qaadiri saas ahayd Allah nagu anfaco ku dariiqiisa mara istiqaamadiisa iyo wanaagiisa iyo ku daydo oo maxabadooda ilaahay uu siiyo jacla Allah naga dhigo barakallahu fiikum wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh munaasabada ayaa waxa soo xiray sheekheena Sheekh Ismaaciil Sheekh Abdul Qaadir Sheekh Usmaan Sheekh Sheego Sheekh Uways Al-Qaadiri شهردي شيخنا الشيخ أويس أحمد القادري فلان به وان دماده أقبل إجابة مقبول أنت زيارتك سو حاضرتي دمانتين خير لقدومة ومحسنتين أحسنتم وأحسن الله إليكم kulanka ayaa waxa ducada ku soo qatimay ahlu beedka nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatay saatul ijaabada ilaa wana la kulmi ilaa saatul ijaabada ilaa wana la kulmi ilaa saatul ijaabada ilaa wana la kulmi ilaa aaminta maagta ilaa kulmi sheekhana Sheekh Uways dheer ilaa u naxariis mashaaqita meeshan ku duween ilaa u naxariis dhamaantoodna waalidiinkeena ilaa u naxariis waalidiinkooda ilaa u naxariis aswaajunaba atbaa'unaba asxaabunaba ilaa u naxariis intii diinta u soo dagaalantay u soo dadaashay u soo kuftay u soo jabtay ilaaha ugu naxariis aaminta malaa'ikta ilaaha kulmi Allah ka raali noqday Sheekh Uways Al-Qaadiri ayaa kamid ahaa caarifiintii waaweyneed ee mufakiriinta ahaa ee fashiliyay dabinadii halista ahaa ee gumeystaha reer galbeedku ay la soo damaaciyeen dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah si ay diintooda uga bedelaan sheekha ayaa halgankiisaas guuleystay wuxuu saldhig uga dhigay si xoojinta kalsoonida ummadda Soomaaliyeed ee dhinaca diintooda islaamka taasoo uu dhidibada u aasay iyo waliba inuu u sugo heebtooda diineed ee aqoonta ahaan madhab ahaan iyo dariiq ahaanba sheekh ku aftirsanaysa nabigooda Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee iyadoo sheekhu uu si gaar ah kaalin weyn uga qaatay hagaajinta iyo saxidda fahamka guud ee bulshada ee dhinaca midnimada dariiqooyinka saalixiinta ee tasawufka taas ayaana soo saartay jiil baraarugsan oo qadiyad leh si midnimo ahna uga hortagi kara dhagaraha gumeysiga taasoo ugu dambeyntii keentay in gumeystihii uu isaga huleelo guud ahaanba geeyga Soomaaliya isagoo niyad jabsan guul darro awgeedna raafka jiidaya
sheekha oo in badan ilaahay hore u weydiisan jiray inuu ku arsuqo darajada shahiidnimada ayaa sanado badan oo halgan dheer uu kula jiray gumaystaha kadib wuxuu bilowga qarnigii 14aad ku shahiiday deegaanka Bioley ee gobolka Bay koonfurta dalka Soomaaliya kadib weerar ay soo qaadeen sirdoonka Talyaaniga oo isticmaalayay calooshood u shaqaystayaal Soomaali ah oo culimo loo soo ekeysiyay isla markaana loo soo labisay dharkii culimada dariiqada saalixiyada oo kale bulshada Soomaaliyeed ayaa sanad waliba 23 bisha Mawlid waxay dunida daafaheeda ku qabtaan munaasabado waaweyn oo ay ku xasuusanayaan uguna duceynayaan sheekooda isla markaana lagu daraasaynayo taariikhdiisii dahabiga ahayd iyo dacwadiisii barakeysneed ee guuleysatay عبدالرزاق علي جوليد المحمودية تي في مقالة مكينة رود هذا بتوحيدي ونور الله وصار فيها